انت اسلامك كمد ما حجابك عربت dhaqankeeda weeye imisa naqli doontaan tan xijaabkani waxa rabaa adiga waxa ilaahay uga dindiginaysid adi ahaan oo qabtid waajib ma igu tahay ani inaad timaada washto haddaba sida aad aragtaan su'aasha waxa uu ka dhigay su'aal personal attack ah su'aashii ay weydiisay oo ahayd xijaabku waajib ma igu yahay uu ka gaabsaday waxa uuna ku soo gabagabeeyay anigu dumar ma ihi in aan timahayga daboolo waa wax lagu qoslo waa kan kishka oo la weydiiyey sanado ka hor xijaabku ma waajib ba jawaabta uu ka bixiyay in la dhageyso adigu xijaabka maxaad ka aaminsan tahay xijaabka in gabadhu is xijaabta muslimada ahayd qaar badan oo muslimnimo sheeganaya ayaa beeninaya xijaabka la xijaabka waa dhaqan arbeed ee ma ahan diin islaamna lahaaya subhanaka ya cadiim jawaabtan dhageysta insha Allah soo dhawaada diinta islaamka kamid ma xijaabka carabta dhaqankeeda weeye imisa naqli doontaan qofka saarihi waa gal weeye ugu hayr aayado quraan buu inkiray oo diiday hal aayado qofkii diidana gal weeye quraan aswayna dogaatid weeye marka xijaabka haduu inkiro oo inkiro maanta markaysa soomka oo inkiro salaada oo inkiro xajka oo inkiro shahaadateynka oo waxa oo dhan oo inkiro ama saliib buu surto cross buu surtay surka surtay ama gacanta surtay silsilad ay cross ku taalo saliib qofkaasi gaal weeye uma baahna in la weydiyo la yiraahdo ma muslim ama soo gaal weeye in la weydiyo uma baahna ilaahay buu ku jaasiyay nari quraankiisa ku jaasiyay rasuulku ku jaasiyay ama waa shakiyo wuxuu yiri yani ilaahay inuu jirin kala kama warhayo anigu quraankan inuu sax yahay inuu saxan kama warhayo nabi maxamed inuu rasuul ilaahay inuu ahayn kama warhayo waxa la yiraahdo kufr shaki baa la yiraahdaa soo dhawaada nala dhageysta kuwa isku sheegay inay ulamo yihiin marna fatwoonaya marna ka gaabsanaya ninkan xijaabka beeninayo quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala shakiga ugu jiro gabdhaha muslimaadka ay wiilasha muslimaadka ana qaldaya jawaabaha culimada islaamka oo culimada Soomaaliyeed ay ugu jawaabeen iyo aayaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala aan shakiga ku jirin nala dhageysta soo dhawaada si wacan diinta islaamka loo barto oo loo dhageysto ilaahay subhanahu wa ta'ala jidka khayraysan hana waafajiyo su-aasha koowaad waxaa waaye ani ahaan ku weydiinaya waxa adiga ilaahay ugu diin dhiganay sidaan iiga jawaabay sheekh kale iyo wax kale xitaa marawaan wax adiga ahaan aan ka qaadanaya rabaa timaha inaan dabooshto waajib ma igu tahay ani su-aasha koowaad taas waaye tan xijaabkani waxa rabaa adiga waxa ilaahay uga diin dhiganaysid adi ahaan oo qabtid waajib ma igu tahay ani inaad timaha dabooshto inta saarwana iga jawaabtaada maad أخي أنا وحنا قف نقوش سوق قدبيسي أمانة لو سوق قدبي لكن بيرسونال شخصيا ساعات امتحانات كنوع سو كلام محاكم تاس وحنا أمرنا خلق إن أنا نو إيمانا سؤال أبو قادر آدي هذا أمها تصنتهي سؤال شكوات وكعذر دارة أمالينا سؤال كواد وفهمتي وحو أها أذيك الشخص أهان ما حد قناع عن سنتين أنا وحنا نرى عالم الأمانة علمي إسارا وعلومته وحنا برتان كلا قرينين أيانا وحنا نسوق قد بيادتك وحي علوم إلهي وفجي من خريو كتاب كان كأخرستي سانو يري ويدا ماتي لكن أنا الشخص أهان أنا دمر مئيس أنت ميجو دبولا أمانة دور مركو حنا إيجار أنا مهمة إن ما ركتي كهذا haddaba sida aad aragtaan su'aasha waxa uu ka dhigay su'aal personal attack ah su'aashii ay weydiisay oo ahayd xijaabku waajib ma igu yahay uu ka gaabsaday waxa uuna ku soo gabagabeeyay anigu dumar ma ihi in aan timahayga daboolo waa wax lagu qoslo waa kan kishka oo la weydiiyey sanado ka hor xijaabku ma waajib ba jawaabta uu ka bixiyay in la dhageyso adigu xijaabka maxaad ka aaminsan tahay xijaabka in gabadhu is xijaabta muslimada ahayd أنا كترسلنا هاوي ما جرت وحياة والله جانا أما عرفت حجاب عشان واجب كمثلا خفت ضمر جير كذا وعورين كان صح جلباب كان وين يعني وحيلو الصراط يوم عرفت ضمر جير كذا وعورين كان صح عبار كور بعد واحد تري هذا الكلام كجري أنا ما فتوى ذا تري مركب الويدي حجابكم واجب بمثل معهم
waxaa tiri inuu fatwo ma bixiyo haddana waxaan haynaa adigoo fatwoonaya inuu qofka khaniiska jirkiisa uu bedelo oo ninku naag iska dhigo naagta nin iska dhigto aad tiri anuu saasaan fatwoonaya marka fatwadan halkanna way gashaa xaggana ma gashamiyo su-aashayda koowaad su-aasha koowaad sheekh cabdalla wuxuu yiri waxaad tiri mana fatwoodo haddana waxaad fadwootay khafka jinsiyadiis inuu bedeli karo oo hadduu lab ahaa dhadig isku bedeli karo hadduu dhadig ahaana lab isku bedeli karo mushkiladii waxa weeyaan khafka hadduu mar oo kiyaalo madow kuusoo gashto wax unbu maaragtay kaama waynaya wuxuu ceeb kaaga dhigo waayo fadwadan aniga ma aha dadka fadwooday waxay ku jirtaa yani googleka haddaa gashid mataya waryaa kishkiyow haddaba waa ayo ninkaan noo fatwoonaya waxaan ku fadwoona ama aan ku talinayaa haddayba ay joogaan meel oo caafimaadkana saamaxaya inay total isku bedelaan sidii asalkooda uu yahay hadday dumarnimo u badnaayeenna dumar ha isku bedelaan operationkii waa loo sameeyaa qaabkii dumareedka ayaa loo sameeyaa naasihii waa loo sameeyaa wax walba waa loo sameeyaa fadwadan aniga ma aha waxaan ku fadwoona ama aan ku talinayaa fadwadan aniga ma aha waxaan ku fadwoona ama aan ku talinayaa fadwadan aniga ma aha ninkani kas dadka sida loo tashwiishiyo shan hadal oo iska hor imanayay ka soo dhahayaan kan markaa ku qabsata kanna waan iri buu leeyahay kanaaban anigu iri cabaayaddas inay isku soo hogaan oo ay jirkooda qariyaan soo marka timaha iyo madaxa ku jirto waqti bay ahayd laakiin tan ma qosaynayso because muslim ilaahay wuxuu dhihi karay dhammaan muslimiinta waayo xaasaska gooni ugu sheegaa waayo gabdhaha nabiga calayhi salaam gooni ugu sheegaa waayo mu'miniinta gooni u dhaho ilaahay wuxuu dhihi karay macnaha dumarka muslimiinta oo dhan laakiin ilaahay ونساء المؤمنين nimanka mu'miniinta anagahoodan ha u sheegaan aniga xataa daaragta lagiima amrin inaan istabuulo dhegeysta ninkan waxa uu ku hadlayo magaciisana waxaa la yiraahdaa Ali Raage ee dhegeysta si fiican ha loo dhegeysto ugaasana hor fadhida ugaasa waxaan aaminsanahay xijaabkii quraanku sheegay inay ku xijaaban tahay anu sana aaminsanahay wax ib ah oo ay leedahay uma jeedno wejigeedaan u jeednaa qoorteeda u jeednaa gacmeeda u jeednaa qof baa wuxuu aaminsan yahay naagta qaawan maxay ahayd naagta qaawan oo meesha fadhida أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما نبينا إنه مقلنا وحدها مقرن معي هذا البذل فائدة ماله قبليه النبي اللي جوقي حلقي صلى الله عليه وسلم intii soo daadegtay marada xijaabkay soo daadegtay iyagoo magaalada jooga oo danahoodii qabsanaya loo sheego la yiri nabi maxamed waxa ku soo daadegtay aayad odhanaysa gabdhuhu maryaa haysa saara halkay fadhiyeen kama kicin saxaabadii nabi maxamed kama kicin halkay fadhiyeen bay mid waliba mara meel ka jeexatay midba meel ka jeexatay isku duuduubtay iyadoo duuduubay gurigii gashay intay mara kale helaysay intaasay diiday wadada inay marto mar hadday aayad soo dhaadhacday tiri xijaabta su'aasha ahayd faaraga nabigoodana maqlayaan ilahoodana maqlayaan la taacdo qalbi engegan iyo shayd hiilkan cajiibow ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala ilaahay ka baqa amarka ilaahay maqla amarka ilaahay qaata subxaanahu wa tacaala محمد قالها كرها حسبي الله ونعم الوكيل إلهينا شيطانها كرها دمانتين لم يندق بدمانتين إيليا وأيضا نتعاون يا النبي وهينا النبي صلى الله عليه وسلم